galabta oo halkan waxaan isugu nimi inaan ka hadallo walaalkay Cabdiqani Cali Caydiid marxuum Cabdiqani Cali Caydiid oo ku geeriyooday shil uu sababay shirkadda leerka ee Heeko sandaqadan ayuu ku geeriyay maalin shanaad kadib wali meedkiisu waxa uu yaalaa cisbitaalka guud ee magaalada Burco kaasoo wali xal loo helin waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland guddiga nabadgelyada iyo maamulka gobolka Togdheer inay kaasi si cadaalad loo baaro kiiskiisa isla markaasina si xeel dheer looga warhelo oo aad loo eego oo si cadaalad ku saleysan in arrinkiisa loo garo marxuumkaas waxa uu ku geeriyooday short uu sababay leerka shirkadda Heeko oo ku soo go'ay meeradan sida la sheegay dadka xaafadana ay xaqiijiyeen waxaan ugu baaqaynaa inagoo cidna ceebaynayn cidna aan dhaleecayn in kaas cadaalad loo sameeyo marxuumka oo ehelkiisa iyo dadkiisa la qanciyo oo sida ugu macquulsan loo qanciyo inankaas waxa uu ka mid ahaa ardayda jaamacadda Burco waxaanu ahaa sanadka saddexaad ardayda jaamacadda Burco runtii waan ka tiyaaraysanay annagoo ka mid ah ardayda jaamacadda Burco gaar ahaan ardayda iskuulaaska ahaa marxuumkaasi geeriyooday waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo guddiga nabadgelyada iyo barasaabka gobolka Togdheer iyo laamaha amniguba in arrinkaas si toos loo eego oo si dhab loo hawlgalo oo si aad loo eego aan maalin walba qof dhintay la iska aasinun balse dadka la qanciyo oo si bulshadu ay u qanacdo Cabdiqani waxa uu horaantii weekend oo maalintii Sabtida ahayd u geeriyooday short ka kacay dukaan uu hayay oo ku yaala xaafadda Caqiibo Cabdiqani maanta kullixa waxa uu ku jiraa talaagada dhakhtarka weyn ee magaalada Burco wax garowshiyana kama helin shirkadii leerka lahayd shirkadda Heeko ee leerka shida magaalada Burco waxaan ka codsanaa shirkadda magaalada Burco shida leerka maadaama ay tahay iyadu shirkadii magaaladan ugu hayd shirkadii leer inay shacabkeeda hoos u eegto arinta Cabdiqani hoos u eegto garowshiyana ka qaadato family-ga Cabdiqani runtii waxa ku ahba argagax labaad ama naxdin labaad ku ayo anagoo family-giisa labaad ba inuu maanta Cabdiqani lix tahay uu ku jiro talaagada meedkiisina wali aan la aasin wax garowshiyana laga qaadan shirkadana aanu ku hayn wax culaysay wax dhibaato toona aanu ku hayn waxaan si baaq dheer u direynaa shirkadda Heeko inay hoos u eegto shacabkeedan masaakiinta iyagu ku nool yihiin ay ka dhisanayaan waxaan ka dhisanayaan xafiisyada iyo fuqaqa kulli waa shacabka ay ka ganacsanayaan shirkadda Heeko waxaan leenahay shacabkaaga hoos u eeg mas'uuliyiinta shirkadda leerka Heeko hal mid u booranaya Soomaalidu waxay tiraahdaa masiibadu inta guriga ka maqan tahay guriga walaalka way jirtaa baa la yiraahdaa dhammaan mas'uuliyiintan shirkaddan leerka Heeko ninna ma jecla maanta in qoyskiisa iyo qaraabadiisa toona wax murugeeyo maxay toona wax damqaatoona uu la kulmo maxay ama looga soo warramo way dareemi karaan in dhalinyaro oo qoys dhan eeganayay oo sanadkii saddexaad ee jaamacadda ku jiray oo sanad kale uga harsanaan maxay toona midhaha intifaaciisa la arko geerida ku timi waxaan codsanaynaa oo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah uga codsanaynaa in wasaaradda tamarta iyo macdanta ay soo dhex gasho maxay toolay shirkadda leerka ee magaalada Burco leerka siisa iyo isticmaalayaasha adeegeeda xaq ma aha in ay isku kiis noqdaan qofka isaga intuu leer farafareeyay ku geeriyooday yani qofka shakhsiga ah ee maxay toolay short leer qabsaday waxaan ku baaqaynaa in la sameeyo xeerar kala haga oo kala nidaamiya shirkadda leerkeeda iyo isticmaalayaasha adeegeeda waxa maanta ah wax laga xumaado in maanta caawa ku lix noqonayso intuu ku jiro Cabdiqani Cali Caydiid talaagada waxay ahayd kiiskiisa in si dhaqso loo dhameeyo maadaama uu iska cad yahay kiiska qaabka u dhacay wax kasta waxaan ugu baaqanaa laamaha ammaanka sharci dejinta golaha fulinta wax kasta waxaan ugu baaqanaa inay Cabdiqani sidoo cadaalad u heli lahaa falugada ay qabtaan halka waxa ka dhacday geeri foolxun waxa ku dhagay leerkaas ayranka ku dhagay waxa noogu soo horeeyay dabdamiska meedkiisii qaaday madaxweynaha iyo cidda ay qusayso oo dhan waxaan ka codsanaynaa inaan ka Cabdiqani inuu cadaalad helo maalin kasta hooyo goblanta maalin kasta hooyunba ooyaysa haye halka cidi kama raad raacdo hooyo ooyaysa waa in laga raad raacaa oo la baaraa oo hoos loo eega danyartii iyo shicibkii halkan waxaan ka soo jeedinaynaa baaq aad u dheer oo ku socota dhinaca degmada iyo gobolka iyo mid heer qaranba baaqaas soo khuseeya guud ahaan madaxda qaranka inay markaa wax ka qabato kiiskan Cabdiqani Cali Caydiid oo runtii damqasho labaad iyo geeri labaad ku ah qoyska uu ka soo jeedo Cabdiqani oo maanta kulix uu ag yaalo oo aan markaa qabrigiisa iyo labadiisii mitir ee xaq u lahaa aan la geyn halkan waxaan u taxsuuga dadnay heladii iyo qoyskii qaraabadu ka baxay Cabdiqani Cali Caydiid oo kamid ahaa ardayda jaamacadda Burco gaar ahaan qaybta xisaabaadka waxaan taxsi tiiraanyada u dirayaa dhammaan family-ga qoyska saaxiibada iyo ardayda iskuulaaska ahaayeen walaalkeen Allah u naxariisto Cabdiqani Cali Caydiid oo shil naxdin leh oo shoora ku geeriyooday muddo wiig ka hor halkan waxaan u taaganay maanta oo isugu soo baxnay inaan taxsi tiiraanyada u diro
marxuumkayna ka wada baxay cabdiqani cali caydiid halkan waxaan u taagannahay oon baaq dheer u diraynaa laydhkii sababay inankaasi inuu aakhiro u hoydo iyo shirkadda waxa weeyaan uu heeko inuu ka helo cadaalad annaga maanta waxaana anfacda cabdiqani wuu naga wada dhintay inuu helo cadaalad uu ka helo dhammaan ballaamaha ammaanka iyo gaar ahaan shirkadda uu ku baxay laydhkii xaggeeda ka yimi oo aanu dadku noqon dad kooto ugu jira shirkad maalin kasta shirkadda heeko waxaa ku baxa dad iyaduna waxay ka taagan tahay go'aan ah annagana lakuma laha